صاحب الكسر الواد وربحين عن كدياريي وحرنتي لقط المامي كرو عيب قرن ويدح فديسو دولة فدرالك الصومالية بلانو متكرر هنا مجتمعي يا إمكان اليابان مشاكل كدحول عيسى حكومتي وحميد عمل لهيد يدقن عصب ومن مكفاشلين عن أبحيي وكدح بلودي دولة فدرالك الصومالية waxaan eegi doonaa wasiiro iyo xildhibaano badan oo shalay ilaa xalay isku rifayay baraha bulshada waa hagaag tan iyo markii uu jamciir ra'iisul wasaaraha nidaamka Tel Aviv uu ku dhawaaqay aqoonsiga uu siinayo Somaliland waxa soo baxay hadallo ka imanayay madax ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo sidoo kale eegi doonaa waxa ay mudan yihiin wasiirada isku tiranaya baraha bulshada ee jamaahiirtii isku hor qaawanaya senator Cismaan Dube oo isagu bari wadani ahaa uu iska casilay xilkii uu ka hayay aqalka sare kadib markii uu eedeeyay dad aan waxba ka khusaynin arrimaha uu ka hadlayay halkii uu eedi lahaa mabda xumadiisa halka mudan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo haya xilka afhayaanka isla aqalkaasi uu isira gaabiyay hatta hadii ay ku fiicnayd inuu markan oo kala tiraabo oo uu tayo hogaamineed muujiyo mase ogin mowqifkiisa marka inta u dhaafi mayno ninka odayga ah halka saysartu ka quruntay waa in wasiirro ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay iyana bilaabeen in hadallo kulkulul isku weedaarsadaan baraha bulshada taasoo soconaysay ilaa xalay waqti dambe maantana laga yaabo inay sii socoto bilowgii wasiirka gaashaandhigga wax kasta oo la sheego ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabayay war murtiyad ay soo jeediyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo sheegay inay matalaan qoy galbeed oo iyaguna dowladda federaalka ula hadlayay sidii inaanay ka tirsanayn ayaa madfaca ugu horeeyay riday Fiqi waxa uu farta ku goday arrin la filayay inay mowqif ka istaagaan sida uu sheegay xildhibaanada qoyga qaarkood balse ay ka gaabsadeen oo ah aqoonsiga Netanyahu iyagoo taa bedalkeeda u muuqday inay si dadban u taageerayeen aqoonsiga Somaliland waxay kale oo ay warac gadinayeen taariikhda iyagoo sheegayay inay 60kii laba dal isku biireen dabcan Hargeysa waxa 26kii June 1960kii ay saaratay calanka buluuga ah ee official governor oo Muqdisho la saaray 12 October 1954 taasina dabcan ma sheegayso laba dal ee waxay tilmaamaysaa laba gobol waana taariikhda rasmiga ah واسرون إن جميستها كهر عن الصوماليدو هال نظام أو اسكو حيران هوستجي جرين لكن تاسي وحي كجرتي دال بدن ومعها وح وجارة صوماليا من تليانجا إلى جرمانك وأنت أنا نقول دلالك إيمانتيين كهر أها مجالوين أما قبله كلا هوستجا حكومة نظاميو يبقرطويين كلا دوان يعني تاكسي فوقان إن وزير كمالية الصومالية بيح إيمان عجاء أي أسود جوابي wuxuuna fiq ugu door xulay tix u sheegaysa inaanu ka hadlin arrimo uu hore isaga laftiisu waafiqiye u xumeeyay sida hadalka ka dhadhamaysa isaga oo hal tuduc oo gabay ah ku durayana waxa uu yiri ha tilmaamen aakhiro waxa tacabtay baa yaale sidoo kale wasiirka beeraha ee Soomaaliya Maxamed Xayir Maareeye oo hardanka soo galay ayaa fiqi ugu jawaabay gabay laba tudcood ah oo u dhacayay Allah ayo faranjigu muxuu nacas fariideeyay faa'iido laawiyo nin raga muxuu fayl ka wada yeeshay halka kuma harina ilaa habeenkii ayay sii holcaysay dooda siyaasad geelu taasoo markan ah filin aan ka soconin fadhi ku dirrade lagu dhex jelayo xarumihii dowladda federaalka Soomaaliya waxa markii dambe sheekada soo galay wasiirro kale min Hebel Nuur Bidaan ilaa markii dambe uu xoosh waxaan jabaad u qaab u diro xildhibaanad lagu magacaabo Gobson bisanka nin baa laga qoray mahaan haanta arkaysa biyo celinaysa kadib markii isaga oo mid biyadeynaysa lingaxaya ay mid kale biyadaysa waayo shacab daalan baa dadka meel u fafadhiya walow ay qaar badan oo shacabka ka tirsani ay qaab qosol ku jab ah ku kala taageerayaan dadkan sidii dad xigmad iyo xoolo u soo kordhinaya yeelkeeda dhaqamada noocan ah ee xirfadda mabda iyo curfiga siyaasadeed ka aradani waxay dowladda federaalka ka tuurayaan haadaan weyn waayo dad badan ayaa isla dowladda federaalka oo ay ka tirsan yihiin ku uubataynaya booraan hadimo iyagoo dhowranaya danaha siyaasad geela ee Soomaaliya gablanka ka dhigay soo jeedin waxay mudan yihiin in inta sheekooyinkan ka qayb qaadatayba xilalka si degdeg ah lagaga xayuubiyo oo aanay ku waabariisanin golaha wasiirada laakiin aan horta la kaftamaya xukuumadda aan la hadlayo ee aan doonayo inay wax waaniso ragga xukumo eeg hore waxaan u daawanay madaxweynaha oo ku faanaya inuu ilmihiisa xilal u dhiibi karo ha sharciyan waa sax laakiin siyaasad ahaan iyo curfi ahaan waa khalad way waxay u akaanaysaa nin tooxsi waliba dal burbursan isla markaana ku tilmaaman midka adduunka ugu musuq badan inta ayuu dabcan kala garan waayay madaxweynuhu wasiir kale wuxuu bari ku dooday isaga oo kaamirooyinka hortaagan inuu beeshiisa si tarab uga shaqaalaysiinayo wasaaradda uu joogo mid kale oo cadaaladda dhan ku magacaabanay wakiilaha shacabku adeeg naguma laha ee waa sadaqo waxay taasi dabcan muujinaysaa qaayada tayada iyo xilkasnimada xukuumadda uu madaxweyne Xasan Sheekh doonayo inuu noogu tilmaamo magacyo qurxoon sida dan qaran iyo wixii la mid ah marka hore ma ahayn in qof xilka haya dowladda federaalku uu qaabka noocaas uga hadlo ama ugu jawaabo saaxiibkiisa shaqo marka halka waxa ka muuqanaysa xirfad la'aan xilkasnimo darro iyo dishibilin xumo qaangaar ah
dhanka kale fiqi ma aha nin ra'yi badan oo loo riyaaqi karo kusoo bandhiga madlaha badan ee uu ka hadlo warwalaalo aamusna lagama karo isagoo badiya iska dhexbooda arrimo aan isaga khusaynin ama aan ku habboonayn inuu uga hadlo sida uu abbaaro marar badan wuxuu aflagaadeeyaa mucaaradka taasoo lafteedu ah qalad cad oo uu ka gelayo dastuurka waayo dalku waa nidaam dimuqraadi ah sidaa darteed mucaaradku waa hay-ad qaran oo jirta oo ku xusan dastuurka ma aha qaar fasax iyo duco uga baahan xukuumadda walow laftooda lagaga fadhiyo inay noqdaan mucaarad mas-uul ah dhanka raggan ilaa jimcihii marba qaab uga hadlaya arrimo ku tacalluqa halis jiritaan oo kusoo wajahan Soomaaliya oo khabardaar la qoslaysa horta waqooyiga waxaa bariga hore ka iman jiray rag aaminsanaa midnimada oo ay ka dhab tahay waxaa tusaale noogu filan jaamac maxamed qaalib Allah u naxariistee iyo rag kale oo aan dabcan muqdisho dhan uga bixin burburkii oo dhan iyo wixii dagaal ka soconayay ilaa uu ku dhinto 16 Abriil 2022 isagoo jira 89 sanadood wuxuu ahaa astaan qaran oo mudan in la xusuusto iyo nin runtii qowmi ahaa oo xambaarsanaa aragti ummadeed haatan waxaa aamusan Mahdi Guuleed oo hadda ah xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo aan hooshkan haybeed ku biirin balse ma cadda inuu mabda' midnimo oo ku fog dartii la aamusan yahay iyo inuu siyaasadda gedisleeda darteed isu gaabinayo oo uu xil gujaynayo qaar baa lahaa ra'iisul wasaare xigeen buu hanqaloocaya haddii ay dhacdo isku shaandhayn madadaalo ah oo dhawaan la filayo si kastaba se waxaanu soo sheegnay waxaa ka muuqda jahawareer iyo xasarad haybeed waxa loo yaqaano identity crisis looma sabaahno haddii aad tahay wasiir ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ama xildhibaan qaran oo koonfurta ka soo jeeda waxaad sidoo kale matashaa shacabka Soomaaliya oo idil min bartame waqooyi bari iyo koonfurba sidoo kale haddii aad tahay siyaasi ka yimid waqooyiga Soomaaliya waxaad matashaa qaranka oo idil oo ay koonfurena ku jirto dhaqanka baryahan lala fuulaya rakada baarlamaanka ee reer hebel baan halka ku metelaa ah waa siyaasad geeli oo meel xun gaartay ceebta dhacday bal qiyaas xildhibaanad ayaa halka intay istaagtay waxa ay difaacday qof nolosha lagu gubay anigu waan garan karaa qofkii aaminsan go'itaanka Soomaaliland xitaa haddii aan jeclahay midnimada qofkaasi waa qof bareeray waana mid aan aqaan dhanka uu iga xigo haddiise aanad hubin kan aad la hayso ma midnimada ma go'itaanka fadlan xilha ka soo raadina dowladda federaalka Soomaaliya taa madaxda dowladda federaalku waa inay cadeeyaan waa mas'uuliyad ay runtii aad u gabeen waxaad moodaa inay wixiiba noqdeen isku karis aan la kala aqoonin waxaan xitaa arkayay xildhibaan lahaa xaq bay Soomaaliland u leedahay inay go'do hagaag haddii aad sida aaminsan tahay maxaad ka qabanaysaa xafiisyada iyo xilalka dowladda federaalka Soomaaliya bal dhinaca kale ka eego qiyaas adiga oo aaminsan midnimada inaad xil ka qabato Soomaaliland xaalkaagu waa sidee xageed u socotaa waa su'aal taagan oo jawaab sawaab ah ummadda Soomaaliyeed ka sugaysa Maxamed Xaaji Hadal Same TV